madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa saacadaha soo socda isbedel xooggan wuxuu ku sameyn doonaa xilalka ay hayaan saraakiisha ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya. Sida aan helnay xogaha ayaa tilmaamaya in taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya loo magacaabi doono Cali Jeito Cusmaan. Sidoo kale taliyaha ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA ayaan ogaanay in loo magacaabayo Mahad Salaad, kaas oo hore u soo noqday isla taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka, noqday taliyihii ugu horeeyay ee amar ku bixiya in magaalada caasimadda ee Muqdisho laga hirgeliyo kaamirooyinka CCTV si amniga caasimadda ee Muqdisho dib loogu soo celiyo. Sidoo kale taliyaha ciidanka booliiska gobolka Banaadir ayaa la sheegay in isbedel xooggan lagu sameyn doono. Wararka ayaa intaasi ku daraya in taliyaha ciidanka xoogga gaar ahaan lugta loo magacaabi doono Mudane Biixi. Tan ayaa timid ayaa la leeyahay kadib markii dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan ciidamadeeda ay ku jabeen dagaalkii ugu dambeeyay ee ka dhacay gobolka Shabeellaha Dhexe, taas oo keentay in khibrad yari xooggan ay jirto. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sameeyay wadatashi aad u dheer, waxaana go'aan lagu gaaray sida xogta aan ku helnay in isbedel xooggan lagu sameeyo dhammaan saraakiisha ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya, lana bedelo taliyaha ciidanka militariga, taliyaha ciidanka lugta, taliyaha hay'adda nabad sugidda, taliyaha ciidanka booliiska gobolka Banaadir iyo dhammaan saraakiisha kale ee howlgalka qayb ka noqonaya. Haddaba warar kale oo intaasi ka duwan ayaa sheegaya in Odawaa Yuusuf Raagi, taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, uu gudbiyay warqad uu isku casilayo, taas oo keentay in madaxweynaha Soomaaliya go'aan uu ku gaaro isbedelka xagga iyo ciidamada, inkastoo aan la ogeyn in Odawaa Yuusuf Raagi uu qoonsaday saraakiisha qaar oo la sheegay in aysan lahayn khibrad iyo waayo-aragnimo ku aadan xagga dagaalka uu hogaaminayo. Haddaba adiga ka ahaan sidee u aragtaa isbedelka Xasan Sheekh Maxamuud uu qorsheeyay in lagu sameeyo saraakiisha ciidanka dowladda, xilkana laga xayuubiyo saraakiil uu ka mid yahay Odawaa Yuusuf Raagi? Haddii uu kusoo gaaro muuqaalkeena si gudbi leegare sheergare oo la sii wadaag asxaabtaada. Haddii aadan ka mid ahayn inta nagu xiran hadda kusoo biir boggeena oo follow soo dheh. Mahadsanid.